magaalada Ankara ee dalka Turkiga waa halka Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa halkan guryo ka iibsaday isla markaana ay deegaan u tahay. Ali Daahir waxa uu kamid yahay dadka magaaladan ku nool isla markaana deegaanka ah ee guryaha ka iibsaday. waxaan ku booqanay hoygiisa ugu horreeyna waxaan weydiiyay waxyaabaha ku dhaliyay in halkan uu guri ka iibsado. in sararta markaa soo dhawo guriga oo Turkiga ku yaal ku soo dhawo adiga idaacada Firco waa nin mahad celinaya magacaygu san hore u sheegay Aldaan Maxamed Xarsi wadanka Turkiga magaalada Ankara dadka guriga gataan kamid ahay sababtan guri u gatana waxa weeye markii ilmihi familka ay waaweynaadeen baan waxaan go'aansaday inay meel dibadda wax ka bartaan marka wadamadii aan la isgaliyay oo aan xogtooda raadina wuxuu Turkigu noqday wadanka ugu fiican oo waxbarasho jaban oo macquul ah laga heli karo nolol macquul oo jaban laga heli karo saas baan guriga u gatay familkiina qayb kamid ah u joogan waxa jira sida la ii sheegay hadii qofka uu iibsado guri deyn lagu leeyahay in dhibaatooyin uu kala kulmayo arintaasi adiga ma jiraan wax dhibaato ah oo aad kala kulantay kadib markaad gurigan iibsatay runtii markaan waan gadanahay gurigan muuqaalaha aan ku qanac laakiin xagga dawladda hoose dhibaato inay ka jirto in saliim yihiin ma ogeyn laakiin waxaan ka bacd ogaaday inay dhinac walba guryahan nadiif ka yihiin aan deyn lagu lahayn daalqada canshuur lagu lahayn oo ay nadiif yihiin oo xaqiiqa ah runtii markaan ku laabtay oo aan ciqaabada qaadanay la weydiiyay gurigan bal canshuurtiisii ka soo waran waa watay waa nadiif al caalamana gurigan dhanka kale Farxaan Maxamed Doore waa gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate oo ah shirkad iibisa guryaha. Farxaan waxaan weydiiyay dadka ugu badan ee guryaha ka iibsada iyo sidoo kale qiimaha guryaha la siiyo. magacaygu waa Farxaan Maxamed Doore Guuleed waxaan ku magac dheerahay magacaas gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate ee wadanka Turkiga. wadankan waa wadan ballaaran waana wadan dhismaha caan ku ah waana wadan population aad u badan 85 milyan u sheegay dadka Turkiga laakiin annaga hadda qaybtan ka hadlaynaa waa qaybta dhismaha iyo deegaamaynta guryaha Soomaalida inta badan dadka aad guryaha ka iibisaan oo kale halkii ka kala yimaadaan ma Soomaaliya iyo gudaha dalka mise waxay ka yimaadaan dibadaha waxay ka yimaadaan America sida Canada iyo Mareykanka waxay ka yimaadaan Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo Carabaha inta ilaa Soomaaliya way ka yimaadaan qiimaha la eega ayaa la siiyaa guryaha sida caadiga cid walba ay ogtahay real estate malaha meel ku dhamaado meel ka bilowdo guri walba wuxuu leeyahay wax u gooniyo laakiin haddaan hoos u dego Soomaalida guryaha ay gadato hadda xaaliyan 40,000 ilaa 120,000 ay u dhaxeeyaan guryaha laga iibsado magaalada Ankara ma jiraan xeerar iyo sharciyo u degsan guryo gadashada haddii qaladaad uu dhacana sidee ayaad ku xallisaan bini'aadamka adduunyada joogaa lagama waayo qaladaad inay dhacaan laakiin waxa weeyaan haddii qalad dhaco waxa la rabaa in wax laga barto sida saxda ah wadankan waa wadan dulqaad iyo ixtiraam u samaysan wadamada Yurub iyo Ameerika oo kale waxa ka jira haddii aad wax iibsato shuruucdii aad ku gafto wax ku qabanaya ayaa jira ayadoo tashuruucdii kale jirta waxaa jirta macaamil iyo isku dulqaadasho sida Soomaalida oo kale haddana sharcigeena laga boodi karo oo raacay Intisaar Saalax Xuseen VOA magaalada Ankara halkaas wali aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal waa Washington haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo si faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi